waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Kalsame TV waxaan idin soo gudbinaynaa ciidanka difaaca Puntland oo markaasi amar culus soo saaray kaasoo ku aadan xubnaha markaasi haraadiga kooxda IS ee ku dhumaalaysanaya dhulka buraleyda ee Calmiskaad iyo guusha ciidanka difaaca Puntland ay gaareen ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa balse intaan guda galin waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkana like saarto taasi waxay naga saacideysaa in dad badan ay gaarto xogteena ciidanka dawladda Puntland ayaa waxa markaasi ay wadaan howlgalladii ugu dambeeyay oo ay ku baacsanayaan haraadiga kooxda IS oo markaasi haatan tabar badan aysan ku harin waxaana Puntland ay markaasi amartay inta wali baxsadka ah ee firxadkooda ay ku nool yihiin deegaanada markaasi buraleyda inay isu soo dhiibaan ciidamada dawladda gaashaanle Faarax Axmed Faarax oo markaasi lagu naanayso laba dhalo oo ah taliyaha ururka 14aad ee Dhiirane oo ka tirsan ciidanka daraawiishta dawladda Puntland ayaa ku amray firxadka wali markaasi ka nool argagixisada IS ee baxsadka in sida ugu dhaqsaha badan ay isugu soo dhiibaan ciidanka dawladda Mirale waxaan markaasi ku qabsanay dagaal adag oo cir iyo dhul ah oo aan ka weerarnay argagixisada waxaana meel walba daadsan meedadkooda waxaan farayaa inta firxadka ah ee markaasi wali argagixisada ka nool ayaa markaasi lagu yiri warka in inta markaasi iftiinka isu soo dhibaan ciidamada dawladda ayuu yiri gaashaanle Faarax Qaryood oo ku magac dheer Faarax laba dhalo taliya Faarax Qaryood oo kamid ah saraakiishii markaasi u horeeyay ee shalay u daatay taliska Mirale ayaa sidoo kale wacad ku maray in aysan gacanta ciidamada ka baxsan doonin inta yar ee wali ka nool firxadka Daacish haddii aysan si degdeg ah isu soo dhiiban inta iftiinka taasoo la micno ah in haddii la galo waqti mugdi ah ama habeen ah in ciidanka ay qaadi doonaan howlgallo culus isla markaana aysan u saamixi doonin in ay nolol uga baxsadaan deegaanada haatan ay ku dhumaalaysanayaan xogaha ay helayso Kalsame TV haatan waxay tilmaamayaan in xubnaha ugu sareeya kooxda markaasi haatan ay ku dhumaalaysanayaan goobo cayiman isla markaana ay ka fakarayaan sidii ay uga baxsan lahaayeen deegaanada haatan ay kaga sugan yihiin dhulka buraleyda ah ee Calmiskaad dawladda Puntland bayaan ay horay u soo saartay waxa ay ku sheegtay in si guul ah markaasi uu ku soo dhamaaday wajigii saddexaad ee howlgalka Calmiskaad kadib markii ciidamadu ay si buuxda markaasi ula wareegeen taliskii Mirale ee maleeshiyaadka Daacish qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta u qaabilsan howlgalka Calmiskaad ayuu ku xaqiijiyay in ciidamada difaaca ay guud ahaan la wareegeen ceelka Mirale oo ay ku dhuumanayeen firxadkii ka harsanaa maleeshiyaadka Daacish kadib markii ciidanku saaka ay markaasi subaxnimadii sabtida ay ku qaadeen howlgal cir iyo sidoo kale markaasi dhula waxa xusid mudan in diyaaradaha dagaalka ee markaasi dawladda Puntland ay qayb ka ahaayeen howlgalka markaasi lagu baacsanayay kooxda Daacish ciidanku waxa sidoo kale ay la wareegeen taliskii markaasi firxadka argagixisada Daacish ee toga Mirale ay ku sugnaayeen ceelashii xarunta uu ahaa kii u dambeeyay ayaa markaasi laga qabtay howlgalku waa mid cir iyo dhul ah wajigiisii saddexaad ee howlgalka ayaa markaasi si guul ah ku soo dhamaaday ayaa lagu yiri xafiiska markaasi war ka soo baxay xafiiska warfaafinta u qaabilsan howlgalka Calmiskaad firxadka ka baxsaday maleeshiyaadka Daacish ee lagu jibiyay dagaalka ayaa u cararay dhinaca toga markaasi baalada gaar ahaan Sadow iyo sidoo kale Yucurun oo ay horay ugu dhuumanayeen qaar kamid ah hogaamiyayaasha sare ee markaasi baxsadka ah haddaba wararkan helayna waxay sheegayaan in Puntland ay markaasi wado dadaaladii ugu dambeeyay oo ciidamada ay markaasi ku gaari lahaayeen deegaano cusub oo haatan ay ku sugan yihiin xubnihii ugu dambeeyay ee haraadiga kooxda markaasi Daacish waxaa la filayaa saacadaha iyo maalmaha soo aadan in madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu warbaahinta la hadlo isla markaana uu u sheego guusha markaasi ciidamada difaaca Puntland ay gaareen iyo sidoo kale in uu markaasi xaqiijiyo in si guul ah uu ku soo dhamaaday howlgalka markaasi wajigiisa saddexaad waxa xigi karana isla markaa uu warbaahinta la wadaago madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani howlgalka haatan waa uu socdaa waxaana haatan lagu daba jiraa firxadka kooxda maleeshiyaadka ee Daacish dawladda Puntland sidoo kale waxa shacabka markaasi ay ku amartay
ee dhammaan deegaanadeeda Puntland in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa dadka ay markaasi uga shakiyaan in kooxdaasi ay ka tirsan yihiin ama xiriir la leeyihiin lana wadaagaan laamaha ammaanka maadaama dhulka buraleyda calmiskaad ee kooxdan lagu jibiyey waxaa markaasi laga cabsi qabaa in dib ay ugu laabtaan magaalooyinka iyagoo markaasi shacabka isu ekeysiinaya Puntland oo taasi ka duulayso in aysan markaasi u suurtagelin haraadiga kooxdan waxaa dadweynaha ay fartay in ay soo wargeliyaan cid walba oo ay uga shakiyaan in ay ka tirsan yihiin ama markaasi ay xiriir ay la leeyihiin kooxda Daacish howlgalka oo haatan ka soconayo dhulka markaasi sare ee buraleyda ayaa waxa uu muuqdaa mid guul ku soo idlaaday kaas oo dabayaaqadii sanadkan aynu ka soo gudubnay bishii December si rasmi ah uga bilowday dhulka buraleyda ah ee calmiskaad 6 bilood kadib haatan waxa markaasi howlgalka uu u muuqdaa mid ay Puntland ku guuleysatay 90% oo haatan markaasi kaliya ciidamada ay halkaasi u joogaan sifaynta iyo nadiifinta goobihii ay markaasi ku sugnaayeen xubnaha ee ka tirsan kooxda Daacish dagaalka waxaa ka qayb qaadanayay toddobaadyadii u dambeeyay diyaarado dagaal oo markaasi ay soo iibsatay dawladda Puntland kuwaas oo ay ugu talagashay in ay markaasi kaga sifayso deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda markaasi Daacish waxaana xusid mudan in kooxdan lala eegtay duqeymo lixaad leh kuwaasoo la aaminsan yahay in ay weeqeen awoodii kooxdan isla markaana ay burburiyeen saldhigyo iyo fariisimo waaweyn oo ay ku lahayeen dhulka buraleyda ee calmiskaad haddaba wixii warara ee ku soo kordha howlgalkan baaxadda leh ee haatan gabagabada ah halkan ayaa si toosa ugala socon doontaan haddii aad horey noola joogtay muuqaalkan like saar taasi waxay naga saacidaysaa in dad badan ay gaarto xogteena isla markaana ay arkaan muuqaalkan cid walba oo jecel guusha geesiyaasha markaasi Puntland isla markaana ku faraxsan jabka